Asalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku dhawaad 8 bilyan oo qof ayaa ku nool adduunkan. Qof kastaana waa mid ka duwan dadka kale. Balse waxaa jira shakhsiyaad ka dhex muuqda dadka kale, kuwaasi oo sameeyay waxyaabo la yaab leh, waana kuwa mudan in la sheego qisooyinkooda. Stanislav Aksionov. Ninkan waa mid leh jir aad u adag, isagoo jirkiisa ku rakiba ama ku dhajiya qalabka baarashuudka, halkii uu adeegsan lahaa boorsada loogu talagalay baarashuudka. Waxaana arrintani noqotay mid ka fajicisay dad badan, sababtoo ah inaad jirkaaga surto birahan oo kale ayaa keeni karta dhaawac aad u weyn. Balse ninkan ayaa awood u leh arrintan, isagoo ka soo booda dusha sare ee dhismayaasha dhaadheer iyo buuraha, kadibna adeegsada baarashuud ku rakiban jirkiisa. Tim Steiner, ninkii dhabarkiisa iibiyey. Waxaa laga yaabaa inaad qaarkiin isweydiinaysaan sidee qof u iibin karaa dhabarkiisa. Haddaba muddo laga joogo 12 sano, artistaha ama sawiraaga caanka ah ee Wendell Foy waxa uu raadinayay qof noqda sawir soconaya. Waxa uuna helay ninkan lagu magacaabo Tim. Intaa kadibna waxa uu dhabarkiisa ku sawiray farshaxan qaatay 40 saacadood. Muddo kadibna waxaa 150,000 oo euro ku iibsaday nin ururiya farshaxanada sanadkii 2008, isaga oo Tim helay saami dhan 30% oo lacagtaasi ka mid ah. Haddaba heshiiska ayaa dhigayay in marka Tim dhinto laga saaro maqaarka jirkiisa, isaga oo la gelinayo alwaaxa sawirada la geliyo. Arrinta kale ee xiisaha leh ayaa ah in ninkan inta badan waqtigiisa ku qaato madxafyada, isaga oo shaatiga iska siibaya si ay dadku u daawadaan. Curyaankii kartida badnaa Carl Maynard waxa uu dhashay sanadkii 1986, waxaana yaraantiisa ku dhacay cudur halis ah kaasoo curyaan ka dhigay labadiisa lugood iyo labadiisa gacmoodba. Laakiin ma noqon mid ka hor istaagtay riyooyinkiisa, waana mid aad u firfircoon, isagoo ka qayb gala ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta iyo ciyaarta legdanka. Waxaana guulo badan ka gaaray dad xitaa aan curyaan ahayn. Waa dhiirigeliye iyo qoraa jaamici ah, balse waxa uu dad badan ka yaabsaday kadib markii uu fuulay fiiqa ugu sarreeya ee buurta Afrika ugu dheer ee Kilimanjaro, taas oo ku qaadatay muddo dhan 15 bari. Waxa uu tababar badan ku sii sameeyay meelo ka mid ah dalka Mareykanka ka hor inta aanu bilaabin safarkiisa uu ku fuulayay buurta Kilimanjaro. Ninkii cadaanka iyo casaanka. Ninkan lagu magacaabo 7 Sugbal hadda. Xataa magaciisa oo la yiraahdo 7 ama lambar 7 waa mid weli lala yaaban yahay sababta ka dambaysa, waxaana u bixiyay aabihiis. Intaa kadib waxa uu noqday mid aad u jecel magaciisa, isagoo ku hadla 7 luuqadood, sidoo kale dherkiisa u sameeya 7 guluus ama badhan. Haddaba taa marka laga yimaado, ninkan waa mid aad u jecel midabada cadaanka iyo guduudka, isagoo dhammaan agabka gurigiisa yaalla ka dhigay midabadan, sidoo kale dharka uu xirto, gaarigiisa iyo xitaa dharka ay xirtaan qoyskiisa. Ninkan ayaa sheegay inuu sidaas ahaan doono ilaa uu ka dhimanayo. Odaygii badmareenka ahaa. In aad isaga gudubtid badaha waaweyn, waxay u baahan tahay inaad ka haysato maraakiib ama doonyo aad u waaweyn, isla markaana qaadato cunto kugu filan iyo ugu yaraan qof badmaax ah. Laakiin odaygan lagu magacaabo Alexander waxa uu dhigay taariikh kadib markii uu isaga gooshay badweynta Atlantika, isagoo isticmaalaya saxiimad aad u yar. Arrinta la yaab kale ayaa ah in saxiimadani aanay lahayn wax mashiin ah, balse uu gacmihiisa ku riixayay. Odaygan ayaana loo aqoonsaday badmareenkii ugu khatarsanaa ee ku safra saxiimad.